وهذا المالين لقنا لبحه مالك لا شقين يسعد كسعته لما باهنا وحلو باهن يهي عد دارتي اللهم مري وأنك اللي جو جاري سنة كي لبده كون يسقال بقول يسقاشن يسديد دي بنلان أساس كذي إن النقطة الدولة تتكدجني أولية هاي قيبت هذا كويا لتحكمك قيبت هذا كويا لتخيراتك ضلك قيبت هذا كويا لتطلع ضلك قيب كلنا لو ذاكته دولة فدرال كاسد هذا بقى هاي سيدا أسقف كي كجور عن وح لقد بون إنه دافعه إن شركة سهر قاله إن دفع عن يقصوا قيب قلان أودي يسوق جيو يقف كمثلية أو يقف قيب قلية سيدا هدوا ممكن مثلية حسابته أو وقيب قلية أو نقول يقف حوله إنه كانوا نقول يقف حوله أو كجور عن مبدأ تذكر نقاطي متكسر كجيدة أو وحكة وأذية هي أما رواينه محوها مجحابيو أما كوا دون يدل كان إني دميان أما رجحيسها أو أذيجين أما هذين تاريخ حنو مدو وأما حمو أما حريرها هذين أنت كلا أو دباتوين كدلك كهاي كوضة سيدا برع بديت دو كلا لوك ميل أنك قالي أما لقيت تونسية هاي أما حق الدينية ده لو ما أقوله إنه صاقله شركات مسؤولية ده أصلا واحد إسكال دبنا لو أنا أورن من هذا القرى أورن مين هذه أنت الآن كجدبه وحاجنا لما أرمض وكله وأن جعلها إن أن تابته بدوحة ويه دولتها فدرال كه ولا قفل هاي الصومالي إنه كهير قلان وحويه ما من ولا قال له قد جدا فعلى الدين يا إن سيدي هرا ودعي جدي هل ما قالوا تطبضن بواحد قاتل إن الحمر أنا أن كسر كجدا وأنت الله يا حمر ورانو حمر لها اللي ما هذا حتى قروا النقطة عاصمته سيدا لفت جدا أورن لها وحويه meel kaliya oo baasaboorka laga soo qaato meel kaliya oo dhiisiga laga soo bedelo meel kaliya oo iskuulka loo aado meel kaliya qofkii jiran dhiig laga qaado meel kaliya talaalka loo aado Soomaaliya uma baahna Soomaaliya waxa baabiyay waxa weeye hal magaalo oo wax walba la isugu geeyay oo magaaladii markay dhacday Soomaaliya inteeda burburtay waxaan inii sheegaya taariikh ahaan ilaa intii burburku dhacay inaan hal ilma laga talaalin Puntland dadka waaweyn baa garan karaya hal talaala weligeed lagama fulin iskuul wax badan baan shirar ka sheegay aniga ka mid ahaa kalaaska lixaad baan xamar u aad maantana mastered baa laga sameeyaa intaasoo jaamacad baa ka furan birina PhD baa lagu qaadan doonaa dadka soo koraya oo dhalinta oo yaryar dhulkooda ha nasiibsadeen yaan dhaxasoo London laga hadlayo waxaan ku yiri xamar hal la dhiso ilaahay dadkeedana ugu soo cesho nabadna ha laga helo laakiin boosaaso iyo garoowe iyo gaalkacyo iyo hargeysa iyo magaalo guuraysa ma jirto wadanka waa la miisaamaya miisaan dhaqaale miisaan kala degad hadda waad ogtihiin waxa dhacay waxaan loo yiraahdo democratic shift muddo dadku xaq u soo guuray muddo 200 sano koonfur baa loo soo guuray waxaba dhici karta in 200 sano tan loo soo guuray ayaa dhici karta waxay ku xiran tahay wixii dadka markaas soo jiita hadeerba fiiga halka daroor laga taagay inta qof ila London ila Djibouti aan soo maray qof kasto af Soomaali ku hadla wuxuu yiraahdaa waxa waa gaarayaan dadkoo dhan baa tiriye maka dhaba waxaan yiri waa naga dhab hayelay Arabiyan ba u shaqo tagnaayo ka soo helaa shaqo oo dadkeenu khayraadkiisa wax ka gaareen maxaa wax Soomaali ka soo baxay u gaari waayay way gaarayaan insha Allah ta'ala waana la heli doonaa waan loo guuleysan doonaa arintaas marka dadkeenu inay fahmaan baa looga baahan yahay asaasna waxa uu ah waa inaad xeer leedahay xeer qeexaya dawladnimadaada maamulkaaga jihadaada lagugu xurmeeyo lagugu soo hagaago aan lagu soo dhaafi karin xijaab ku ah xeerkaasuna waa kan caawa halkan laga dhawaaqay in lagu ansixin doono shirweynaha ama constituency assembly oo lagu qaban doono magaalada Garoowe 15 April ee bisha soo socota insha Allah ta'ala intaas misna waxaan raacinayaa oo kale oo yar waxa weeye Soomaaliya wali waa kala maqan tahay dhul badan al-shabaab baa haysta xoogag ajnabiya oo dawladaha Afrika ay ku soo deeqeen ayaa gacanta ku haya magaalada Xamar amnigeeda iyo ciidan Soomaaliyeed oo iyana gacan siiya baa jooga dawladaha dariska ah oo iyagu dhibaatada Soomaaliya iyo laftooda ay saameysayna gacan bay ka geysteen inay iyaguna ay ka xoreeyaan magaalooyinka muhiimka ah sida Beledweyne oo kale iyo Baydhabo ay ka xoreeyaan iyagoo ay gacan siinayaan dad Soomaaliyeed oo deegaanka iyo cuntubiyo dawladda ku meel gaarka iyagana kamid ah sidoo kale gedo sidoo kale
gobolka jubbada hoose oo isagana lagu soo socdo waxaan ka warhaynaa in nimankii halkaas gacanta shisheeye ay maamulaysay ajnabiga badani ku jiray inkaar qabayaasha ahaa dhiigii cabyada ahaa waddankan hordo iyo haris u diiday waad maqlayseen odayaashii ka hadlaaya beledweyne iyo baydhabo 3 sano iyo 12 bilood baan oday ka dhageystay baan isticmaar ku jiray adduunka aanan soo amarag ayuu yiri inay dadkaas haddii laga xoreeyo ay dib loogu noqon doonin waxa maanta iyaga waxay rabaan meel ay u cararaan meelaha ay dabacsan yihiinna hadda kolley way dhici kartaa in dalkeenu ka mid yahay saa darteed in loo feegignaado oo la ogaado baa dhici karta waxna waa la sheegayay annaga dawlad ahaan iyo ciidankayaga amniguba kolley ummadda ballantaan u qaadnay waa fulinaynaa waana ilaalinaynaa arrimahaas Soomaaliya laga doonayo in ay ka dhashaan markaa dawladihii kale haddii ay ka kacaan nimankaasu meesha way dhalan doonaan laakiin sida hadda socota oo fawdada ah oo hadba 2 nin intay computer fariisato ama meel ay qaxooti wax ka qaataan oo dibadahaasa ay isaga dhawaaqaan annagu maamul goboleed baanuna ama intay tuulo tagaan dhowr gabdha iyo caruuro iyo haween intay buuqiyaan ummadda kale inta kale ku diraan ay yiraahdaan maamul goboleed baanuna oo wax gacanta ay ku hayaan iyo cid kalsooni siisay midna ayin jirin waxaas ma shaqaynayaan maamul goboleed wuxuu ku dhismi karaa sidii halkan garow ka dhismay in dadkii dalka u dhashay ay gacan siiyeen iyagoo raalli ka ah ay cid doorteen nidaamna doorteen dastuurna ay gudubsadeen haddana diyaar u yihiin mid kale gudubsadaan shuruudahaas laga rabo yaa ansixinaya sida la isla og yahay oo charterkii 2004 Nairobi laga dhawaaqay wuxuu ahaa 2 gobol iyo in ka badan 18 gobol maxamed siyaad ka tagay maxaa yeelay gobolada fowdad baa gashay meelaha hal gobol ahayd baa 20 gobol loo qaybshay ama 10 gobol marka wixii ugu dambeeyay oo nidaamsanaa baa la raacayaa wixii ka dambeeyana nidaamkiisu raaci doona qolada iyadu markaa gudaheeda ka tarantay oo gobolka ka yeelatay waa goonideeda sida inaga oo kale laakiin Soomaali markay xisaabtamayso waxay ku xisaabtamaysaa wixii ugu dambeeyay oo nidaamsanaa baa lagu xisaabtamaya intaa wixii ah oo iyagu is ogolaan cid isku khasbin ama 2 wiil oo computer fariistay inta internetka galiyaan ay yiraahdaan annaga maamul goboleed ku dhawaaqnay ama nin oday ah oo laga soo laystay oo aniga iga sii weyn oo anigu waaba iska roonahayo ilaa intii aan shaqaynayay wax eeda cidna kama gelin eeda galay oo loo haysto mid ammaan iyo mid kaleba iyo mid siyaasad xumo iyo lugooyo geystay kuwaas meel uma leh Soomaaliya waxay u baahan tahay wax la yiraahdo generation change dad cusub oo soo gala saaxadda siyaasadda axsaabteena ku imaanayaan xulkaas ay ku soo baxayaan rag iyo dumarba ummadda waa cusub inuu u beriyo oo intaas oo bay soo rareed geedi ahayd 21 sano ciidan maamulayay oo nima iyagu gacanta soo qabtaan ma nin kale soo bixin 22 kale oo burbura waxaas oo in laga baxo 42 amalaya intii la oran jiray tiiha qolooyinka qaarkood lagu aafeeyay waynu dhamaysan 2 sano in badhaafnayba marka nasrigii baa bilaami doona intii wanaagsanayd baa dib u soo bixi doonta annaga iyaga waaweynna marka waxaanu ka tagi doonaa dhaxal dad wanaagsan inayna bedelaan oo aanu gacanta u gelino meesha annagu aan maamulno waxaan rajaynaynaa in meelaha kale oo Soomaaliyana ay saa yeelaan oo aan inoo isaga dhawaaqin meel usan xukuumo hal degma waxa dhici karta in 10 maamul goboleed iyo 10 madaxweyne waxaan u maleynayaa annaga la ku xumaynayaa beri baan waxaan maqli jiray nin reer Hargeysa qolooyinka reer Hargeysa hadallada waa helaan markii Puntland la aasaasay xogaana baqdin baa iska jidhayo meelahan hadeerba qaarkood ay magaalooyinka ka haystaan ayay ka baqaayeen baa nin wuxuu yiraahday laanlaankan hadda la sheegayo Soomaaliland baa rabaa in lagu xumeeyo hadda maamul goboleedyada waxaan u maleynayaa Puntland baa loola jeedjeedaayo waxa la rabaa in magac laga xumeeyo laakiin wardaad Puntland oo kale noqotid anaga ku soo dhaweynaa ku casumayna laakiin hadba hal tuulo 10 madaxweynayaan loo yeeray taasaan ka dardaarmaynaa اعترافك maamul damo samaysma oo dawladeed oo federaal ka mid noqonaya dawladda TFG-ga hadda joogta kaliya ma madax banaana nidaam baa jira lagu heshiiyay road map baa jira waxa jira principalka Garowe 1 iyo Garowe 2 wali qabyaha in kala sii dhiman stakeholders waxa loo yaqaano talada waa la wadaagaa waa in loo dhamaadaa oo la isla gartaa oo markii maamul goboleedada soo dhameystireen miiska la keenaa la isugu yimaada laga wada hadlaa la aqbalaa siday ku timi inuu genuine yahay in kale iyo inuu iska magacaabid yahay haddii hadba nin intuu warqad iska qoro mid jira intuu u yimaado yiraahdo warqadaani hor oo afar oday intuu gacanta soo qabsado yiraahdo iyaga ka wakiilaha deegaankii hadda taas ma shaqeynayso hadda maalmaha waad maqlaysaa inay shaqeyn taas ma shaqeynayso tan labaad waxa weeye madaxweynaha TFG-ga wuxuu ku dhawaaqay maalin dhaweyd dooraad miyay ahayd
waxaan u malaynayaa inay ahayd 8 Maars wuxuu ku dhawaaqay inuu guddi qaban doono heshiisiya wadahadal la fura dowladda Soomaaliland waa arrin la soo dhaweyn karo Soomaaliland in hadal la furo wax la doonayo maxaa yeelay way fogaatay cid kastaba sabab u noqoto laakiin waxaa jira cid bay wax ka dhaxayaan Soomaaliya oo dhan wax waa kala dhaxayaan laakiin cid bay wax kala dhaxayaan 99% waa cidda ay deegaankeedii qaar haysato dadkeedii dagaal la gashay oo ay dagaal la hor fadhido sida Kalshaale kuwii ka dhacay dagaalkii ama buuhoodle ciidamada hadeer meeshii deegaanada biyaha ay hor fadhiyaan haysashada laascaano iyo colaada kale oo markasta laga hadlo oo nin walba ikhtiyaarkiisa waxaan ahayn ragno inay ku qasbaan taas hore u shaqayn weyday dawladda xooga waaweyn isticmaalkii ka shaqayn weyday Soomaalina laftigeedu isma isticmaalsan karno haddaan anagu ka warwareegayno inaan Soomaali dhiigeeda ma ay daataan oo aanu markasta ku dhawaaqayno nabad yaan loo qaadan taas inay tahay tabalwaa ama caalwaa yaan cid kale ka faa'iideysan qadiyadaas oo ay isdiin dadkan si kala jarjar oo wax ka doon wax kasta oo Soomaaliland la gelaayo haddaan Puntland ku jirin oo ayan waxa jira oo magaalooyinka ay haysato iyo colaada meesha ka taagan aan laga hadlin iyo magaalooyinka kasta inay ka baxdo waa wax kama jiraan waxa la heshiinaya nimaan balcad gaari karin la heshiinaya waa xamar baan soo dhaafsisnay haddii aan Puntland markaa ku jirin wixii ka soconaya Soomaaliya oo Puntland ku jirin waxba kama jiraan xaqiiqada inii sheegay waa inta waxa weeye waxaanu ka nahay stakeholder koowaad waxaan ka nahay meesha Puntland Soomaaliya laga asaasayo annaga miisaankii hadda maanta ah insha Allah intii kalena miisaankoodi waa la imaan doonaan tartiib ma ahin inaanu iyaga yasayno ama wax u dhimayno laakiin maanta waa in la ogolaadaa waxa jira oo maanta hormuudka inay annaga nahay cid kasta oo wanaag lagu soo dabaali karo ma laga hadal la geli karana waa wax wanaagsan adduunka nabad baa wax lagu wada dhameeyaa laguna sameeyaa nin ma muquunin karo nin walba xaq wuxuu leeyahay sida dastuurka charterka oo qoraayo 2 gobol oo israacay oo dadkooda isla ogolaaday qof la muquunin kara ma jiro sidii halkan Puntland looga sameeyay ayaa taariikh ah waxaan rajaynayaa waxyaalaha jira oo dhan dadkeenu inuu ku baraarugsan yahay waxa dhawaan bilaamaya barnaamijkii wacyigelinta oo dastuurka meesha loo wado intaan u caawa sheegayo kaliya maaha ay ka hadlaan guddiga doorashooyinku oo gobolada kala aadi doona arrimaha bulshada inteeda kale xukuumadda warbaahinteeda wasaaraddeeda warbaahinta dabcan warbaahinta la isticmaalaya waa meediyaas baa lagu kala ciilbeelaa iyada un baa la wadayaa inkastoo mararka qaarkood ay dhacdo maaragtay iyada laftigeeda in la isu soo maro ragga qaarkiis oo sida imaan dhaweyd idaacad waliba magaca quraanka ku marmarsoonaysay been ay ka samaysay oo intay la xiriirtay argagixisada ciidan ay layn ay tiri waa laayay inta iyagu guul daradoodii qariyaan suuqa galiyay oo dacaayad u sameeyay waxyaalaha maanta nasiib darrada ina ku waxa ka mid ah diintii baa la isu soo galay tuug baa doonta dabada inay isticmaasho ummadda Soomaaliyeed waxa la ogaaday inay diin jeceshahay inay muslim tahay muslimka nin laga xigaa ma jiro ama haysa sunto ama yuusa suntin ama dhiig caab ha ahaado ama yuu cabin muslim annaga naga muslimsani maba jiro Soomaaliya anigu waxaan aaminsanahay inaan ugu muslimsanahay cibaadada Ilaahay nin walba intuu ka gaari karo ka gaaraya laakiin nin walba niyadiisa Ilaahay u qabanaya waxaan go'aansanay aniga iyo inta aan madaxda u ahayba inaan wixii aan qaban karo oo muslimnimo iyo Soomaalinimo iyo ummadda Puntland na dooratay wixii aan u qaban karo inaan u qabanno ayaan go'aansanay sidaas aan ku soconaynaa idinkana waxaan ka rajaynayaa dadweynihiina inaad arintaas gacan ka geysataan dalkiina u joogsataan aadna qabsataan wixii aad qabsan kartaan sida 1998 u qabsataan maanta maalinteedii baa la joogaa waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis guul waxaana inay rajaynayaa qulubtiina Ilaahay meel wada jeediyo waxaana inay rajaynayaa cadowga inuu ina ka qabto waxaana inay rajaynayaa Ilaahay idankiis oo Ilaahay ka baryayna inuu raxmad degdeg inoo keeno inuu abaaraha iyo ina ka saaro inuu ummadda Soomaaliyeedna wada heshiisiyo cadowgana inuu ka wada qabto qulubteena meel isugu nimaadno inagoo mida iyo Soomaaliyo mida inagoo nool inaynu mardama aragno iyo calankeena iyo bambanaya oo ka beer bambanaya kii Soomaaliyeed iyo kii Puntland iyo kuwa maamulada kale oo imaan doona Soomaaliya ay wada timi insha Allah ta'ala saasayna aan doona wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh